ogtihiin muddo dhowr iyo 20 casho ah waxaa ku socday dagaal magaalada Naascaanood oo runtii noociisa aan muddadan la arag waxaan filayaa horaantii sagaashameeyadii wax ka la mid ah baa dhacay haddaan khaldanayn dagaalka ugu dheer ee magaalo ka dhacay magaalada Muqdisho ka dhacay waxa la yiraahdaa 4 bilood buu socday kan kii ku xigay buu ahaa oo 24 beri socday oo aan loo aabayeelin wax kasta oo la adeegsan karay la adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kuwa muharramka ka ah magaalooyinka ee altalariga ah hoobiyaasha waaweyn wax walba oo bulsho meel degan lagu gumaadi karo laguna baabi'in karo arrintaas runtii sida annaga marar badan aan ku celinay caalamkan uu sheegay waan xambaareynaa runtiina waan arrintaas waa arrin u baahan xisaabtankeeda waqtigeeda in laga gaaro waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo marar badanna dawladdu cadeysay dagaalkaas dawladda Puntland qaybna kama ahayn qaybna kama mid noqon doonto ma doonayso colaad sokeeye burbur ummadeed inay qayb ka qaadato waan ka digaynaa waana ka dhiidhiyeynaa arrintaas waxaanse ku kalsoonahay dadka reer Laascaanood inay isaga filan yihiin inay sharafkooda iyo cirdigooda ay difaacaan kalsooni buuxda aan ku qabnaa waxaase u sheegaynaa caalamka iyo cid walbaba inaan musdameed u nahay Laascaanood marka ay isimada iyo garaadadu ay Puntland si rasmi ah uga codsadaan oo ay kari waayaan waxaan fariin halka u darayaa inaan diyaar u nahay laakiin waxaan ka hormarinaynaa nabadda waxaan ku baaqaynaa dadaalada socda ee xabajoodinta waxaan ku biirinaynaa codkeena in dhammaan ciidamada Somaliland ee ku sugan gobolka Sool ay ka baxaan oo ay tagaan dhul aan gobolka Sool ka ahayn hadday dood qabaan doodooda ay halkaas keenaan waxaan la fahmi kara ahayn in dad mas'uuliyiina ay go'aan ku qaataan inay dad yiraahdaan jajuub iyo khasab ayaan doonaynaa inaad dalkiina iyo dadkiina uga go'daan mashruuca Somaliland waxa weeye dadka Sool waxa ay leeyihiin dalkiina iyo dadkiina ka go'a oo dawladdii Soomaaliya ee federaalka ahayd ka mid noqonina haddii kale waa ilaynayna arrintaas arrin cuntanta ma aha arrin caqligu qaadan karana ma aha waxaan rajaynayaa in dib la isugu noqdo oo arrintaa dib loo eego waa saxiix gumaystihii dalkan qabsaday inuu siyaabo kala duwan u qabsaday ingiriisku marbuu Soomaaliya oo dhan haysan jiray taariikhda in dib loo eego fiican oo magaaladan aan joognay magaalooyinka Puntland oo dhan haystay marbaa Talyaanigu dalka oo dhan qabsaday oo xataa Itoobiya qabsaday arrimahaas ma noqon karaan xujo taariikhda marka dib loo raaco dalka Soomaaliyeed waxa kaliya oo la garanayaa waa dad u kala duwan u kala degan dhulkan ugu kala qaybsan yahay hab beele dad isku beel ah laba maamul haddii ay doonaan waa geli karaan laakiin dad isku beel ah lama kala xadeyn karo lamana kala goyn karo marka waxaan rabaa inaan adduunkana la marin habaabin taariikhdana been laga sheegin ee runta mar walba lagu soo dhawaado waxaan taageersanahay horena u taageernay go'aanada isimada dhaqanka ee reer Sool waxaa lagu andacoodaa oo Somaliland ku andacoodaa in gobolada Sanaag iyo Sool ay dhulkeeda tahay gobolka Sanaag wuxuu ku cadeeyay inuusan Somaliland ka tirsanayn oo Puntland ka tirsan yahay nidaamkii isdiiwaangelinta doorashada gobolkaas oo dhan way ka dhacday waa afti dadweyne dibna loogu noqon maayo
gobolka Sool wuxuu ku cadeeyay in ay ka baxdo Somaliland kadibna ay go'aan ka gaarto masiirkeeda waana aqbalaynaa anagu maxaa yeelay marna ma rabno dadkeena waxaysan raalli ka ahayn inaan ku jajrubno annagoo ogsoon inuu dastuurkeenu qorayo inay Puntland ka tirsan yihiin ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tashadaan iyagoo miir qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kala aragtida duwan intay fariistaan go'aanka ay qaataan baan kula shaqeynaa mar horena waa niri mar dhexe waa niri mar dambana waa oranayna waana ku celcelinaynaa arrintaas bulshada reer Puntland waan uga mahad celinayaa sida ay isu garab taageen siday dhaawacii u dhayeen siday kuwii soo qaxay ay u qoodiyeen sida ay garabka macnawiga ah iyo maadiga ah ay mar walba uga garab taagnaayeen meel kasta ay joogaan maxaa yeelay waa jir isku mid ah oo Soomaalinimo oo ehelnimo oo haddana qoysnimo waajib ay lahaayeen biguteen waana ku mahadsan yihiin waan uga mahad celinaynaa waxaan sidoo kale uga mahad celinaynaa dadaalka ay dawladda Itoobiya wado ay ku raadinayso dhexdhexaadinta iyo xal oo ugu muhiimsan tahay in xabadda laga daayo deegaanada iyo dadka nabdoon la burburin cusbitaalada la waxyeelin guryaha deegaanka ah la baabi'in masaajidada xadgudubka keeni kara colaadda sokeeye isnaca in la joojiyo waxaan baaq halka uga dirayaa inkastoo waxgarad fara badan oo reer Somaliland ay ka hadleen arrintaas ay uga xun yihiin annaguna aan garowsanahay in dadka reer Somaliland ay isku waafaqin in Sool la burburiyo ama la garaaco laakiin maamulka musabbixi mas'uuliyadaas waan kula xisaabtami doonaa waqtiga iyo madasha iyo meesha ku habboonaato waxaan rabaa inaan codkayga ku biiriyo codka waxgaradka Soomaaliyeed codka gobolka iyo midka caalamiga ah iyo midka qaramada midoobay golihiisa ammaanka qaranka uu soo saaray oo ah in la joojiyo xabadda in garaaca iyo burburka la joojiyo in haddii wax la kala duwan yahay la wada hadlo intaas ayaa mowqifka dawladuna yahay mid dhow iyo mid hore dadka reer Puntland Soomaaliyeed iyo caalamkana waxa uu cadeynaynaa maamulka dawladda Puntland dagaalkaas qayb kama aha kamana noqon doona haddii codsi rasmi ah oo imaanin garaadada gobolka Sool laakiin waxay noo sheegeen inay ku filan yihiin inay difaacaan cirdigooda